wacan daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka Soomaaliya halkanna waa Shariif Show tabinta tani waxaan ku eegi doonaa maxaa ka soo kordhay weeraradii sida ba'naa ee loogu qaaday maanta dalka Iran gaaraan magaalada Tehran waa sida xaalka hogaamiyaha Iran maxayse tahay talaabada waqtigan la qorsheenaya in mar kale la qaadi karo oo waliba laga cabsi qabo in Iran caawa gantaalo culus lagu fasaxo waa imisa tirada gantaalada Iran ay u sii jeedisay dhanka iyo waliba Israa'iil se waxaa la warinayaa in maraakiib dagaal iyana mar kale ay soo dirtay Mareykanku kuwiisi mar hore ayuu bariga dhexe u keenay waxaa la tilmaamayaa hawshan in Mareykanka iyo waliba Israa'iil ay si wadajir ah uga shaqeynayaan in bariga dhexe maraakiibta Mareykanka la keenana cid fududeynaysa in ay tahay Israa'iil Tehran waa loo hubadsaday waxaa sidoo kale jira oo walibana warbaahinada Al Jazeera CNN iyo waliba kuwa kale badan ay baahinayaan in weeraradan markaasi laga abaabulayo saldhigyo ee ku yaala dalal Carbeed oo laga abaabulayo si markaasi Tehran gabi ahaanba dhulka loo dhigo hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei waqtigan waxaa la warinayaa in markaasi gabi ahaanba amar uu ku bixiyay in dhammaan wixii gantaale ee lahaay halkaasi lagu bixiyo tabintan ayaan intaas ku qaadaa ligi doona saaxiibayaal ku soo dhawaada Shariif Show channelka noo subscribe gareeya like saaxiibada hore inoo joogo meel dheereeyna gaarsiinaysaa yahay naga akrinayna walaalayaal saaxiibayaal noo like garee muuqaalka mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Al Jazeera oo tabinaysa iyadoona xiganaysa saraakiisha Iran in ay markaasi jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ay sheegtay in bariga dhexe uu markaasi isku bedelay furin dagaal oo walibana isla markaana meel kasta laga soo weerari karo taasi oo markaasi ka gaari doonto jawaab ay aad u adag tahay digniino iyo waliba gantaalo la qabtay wararka ayaa sheegaya in markaasi saldhigyo ku yaala dalal Carbeed ee laga abaabulayo weeraradan ka socda dalkaasi dalalka ay xaaladdu sida gaarka ah markaasi u taabatay ayaa waxaa kamid ah Urdun oo ku dhawaaqday heer digniin sare ah iyadoo markaasi la sheegay in gantaalo markaasi laga sii diyaarinayo ama la qorsheynayo Siiriga gantaalada isla markaana la sheegay in gantaalo lala beegsan doono saldhigyada Mareykanku oo markaasi ku leeyahay Qatar sida ay markaasi ay sheegeen dhankeeda xaaladuna markaasi ay tahay mid nabad balse ay qorsheynaydo in hawada laga qabtay gantaalo aad u xoogan Mareykanka waa uu qaaday talaabadiisa mar hore ayuu isku aruuriyay dhammaan xaaladda bariga dhexe si uu markaasi u fududeeyo wax kasta oo markaasi uu ku weerar karo dhinaca kale Iran waqtigan culeys xoogan ayaa saaran iyadoo Mareykanku ugu magac daray howlgalkan halkaasi ka socdo Operation Ibith and Farn la yiraahdo ee Mareykanka ayaana howlgalka military markaasi uu socdo magacaasi u bixiyay taasi oo markaasi uu ku muujinayo baaxadda iyo waliba culeyska howlgalka uu leeyahay dhanka kale Israa'iil ayaa la sheegay in ay wajahayso kadib xilli maanta gantaalo culus ay ku qaracday Tehran maalmihii ugu adkaa iyadoo markaan u bilowday duulaanka wararka ayaana sidoo kale tilmaamaya in dadweynaha markaasi si ballaaran loogu amray in ay markaasi galaan goobaha dhulka ee hoostooda ah si ay markaasi ay uga badbaadaan weerarada suurtagalka ah in xiisadda ay sii kordhinayso taasi oo abuurayda walaac aad u xoogan caalamka iyadoo markaasi laga cabsi qabo in dagaal markaasi uu ku sii fidi karo dalal badan oo bariga dhexe kamid ah Iran dadkeeda meel loo daad gureynaya malaha waqtigan duqeymaha ayaa ku socda waana talaabada ugu adag ee ilaa ay haatan ay sida weyn u wajahayso saameynta ugu culus ee Mareykanku uu qorsheeyay waa mid markaasi laga maarmaan u noqotay waqtigan in jawaabo culus laga bixiyo ninkii Trump ahaa safar culus ayuu u soo galay isagana ee bariga dhexe si uu qayb ugu noqdo howlgallada militariga ee ciidamadu halkaas uu ku daabulayo taasi oo si weyn markaasi saameyn ugu abuurtay maanta mar kale in gabi ahaanba Tehran dhulka la dhigo Ayatollah Ali Khamenei in muddo waxa uu hanjabaadiisa dhinac uu ka dirayay sidii uu ugu jawaabi lahaa weerar kasta oo Mareykanka uu ku qaado laakiin waa loogu daray markan baasha hoostiisa ayay ka kacday oo Israa'iil ayaaba ku bilowday gantaalkii ugu horreeyay taasi oo ay ku xustay in gabi ahaanba Tehran ay kaga soo horjeedo talaabooyinka ay qaadayso iyo waliba qorshe kasta oo adag ee waqtigan la damacsan yahay xaaladda bariga dhexe ma sahlana oo waliba maalintan amaba laga soo bilaabo saaka ilaa min waqtigan idin la hadlayno waxaa ka socda culeysaad aad u xoogan duqeymo ayaana ku socda inkastoo hadda istaageen laakiin qaraxyada ayaana la tilmaamaya in saameyn xoogan ay ku abuureen hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaana markaasi waqtigan qorsheynaya sidii
uu markaasi ugu hortagi lahaa tallaabooyinka ay qaadan iyadoo gantaalada ugu cuslaa markan Iiraan ay qorsheynaydo inay maanta ay fasaxi doonto amaba caawa waxa ka dambeeya si weyn ay u fasaxi doonto wixii kasoo kordha qubanayaashana dambe aan ku qaadan ligi doona saaxiibayaal cimaamadu nagu tuuro janalka noo soo gareeya laag saaxiibada hore noo joogo meel dheer ayayna gaarsinaysaa fadlan ha naga agrana maasanidin